Habeen wanaagsan saaxiibayaal dhantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan. Fadlan haday tahay daawashada kugu horeysa channelka subscribe inoo saar, like, share, comment si asxaab badan u gaaro. Intaas hadaad sameyso waa ku mahadsan tahay. Intaa kadib caawa shaxdii aan soo dhigay galabta wuun ayay noqotay sida u jeedaan. Shaxdaas oo ka koobneed 4 kooxood oo keliya. Waxaan ugu horeysay horyaalka Serie A oo caawada la ciyaaray. Waxaan wada ciyaarayay Atlanta iyo Torino. Atlanta sida u jeedaan waxaa noo saaray double chance halkii ay ku badisay 3-1. Sidoo kaleeto isla horyaalka Serie A waxaa ciyaaray Bologna iyo Salernitana kooxdan la dhahay. Marka Salernitana iyo Bologna waxaa noo saarneed individual total 100 3 gool aan yiraahdee 2.5 ka 3 gool ayaa laga wadaa total 1 inaysan dhali karin 3 gool. Haday 3 gool ay dhali lahaydna sidaas ay loos ku noqon lahayd, laakiin waxaan qiyaasay 90% inaysan Bologna aysan ka dhali karin kooxdan kale 3 gool. Sidaas ayay iyadana win ku noqotay. Labadan koox oo ayadan ka wada dhisan waa qaybta saddexaad Estonia ka wada dhisan yihiin ayadana. Waxaa noo saarneyd individuals total 2 3 gool. Kooxdan kale inay 3 gool dhali karin kaliya 2 ayay dhalisay, 3 gool maysan gaarin. Tan afraad oo iyadan Estonia ka tirsan oo ku qoran tahay Fimsi guud ahaan ciyaarta waxaa noo saarneyd 4 aan yiraahdee inay badi karto. Sidaas ayaanan kooxdan kale oo la dhaho sheeg maxaa ku yiraahdaa Barnu ay ugu badisay 2-0. Marka guud ahaan shaxdeena caawa sidaas ayay win ku noqotay sidaad u jeedaan 4 kooxoodba. Marka fadlan nagu soo biir si aad habeen kasta noola guuleysato. Shaxdeena kalena hadda alla yiraahdo Brit ayaan soo dhigi doonaa. Habeen wanaagsan saaxiibayaal mar kale.